السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا سلام صاحبي الملك استوديومكاد ka joogtaan kusoo dhawaada YouTube channelkeena oo mar kale iyo muuqaal cusub. Maanta waxaan la wadaagi doonaa haddii laga yaabo inay jirto waxa lagu magacaabo inaan nacday Facebook hore ama isticmaasho Facebook kale balse aad u lahaan jirtay hore Facebook kale. Maanta waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalkan sida aad uga saari lahayd wada Facebook-gaagii hore aad isticmaali jirtay kadibna aad nacday ama aadan hadda isticmaalin laga yaabo inaad ka maarantay. marka maanta muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa qaabkii looga saari lahaa hawada uga saari lahayd ama khadka uga saari lahayd waxa lagu magacaabo Facebook-gaaga hore. maanta muuqaalkaas ayaan idin soo diyaariyay in la wadaagi doonaa. waxa laga yaabaa in badan inaad u baahi qabtiin ama rabtiin inaad ogaataan qaabka uga saari lahayd hawada Facebook hore oo ku dhibay ama adigu aad lahaan jirtay asxaabtaada laga yaabaa inay ka ku qaldamaan. marka maanta muuqaalkaas ayaan kula wadaagi doonaa qolaya daawasho runtii markuu ugu horeysay aan rabno inaan delete gareyno ama khadka ka saarno waxa lagu magacaabo Facebook-geena hore waxaan ku qasbanaynaa tagno barta in ka maamulano Facebook-geena oo ah bartaas ay ku qoran tahay Facebook. markay sidan waxaa noo soo baxaya icon-nadan sare sida arkaysid icon sare ayaa noo soo baxay. marka waxaan tagnaa meesha saddexda xariiqood ama saddexda jitimood ee dhinaca geeska ayaan taabanana. markaan taabano qaybtan ayaa noo soo baxaysa hoos ayaan soconana meesha ay ku qoran tahay setting and privacy ayaan taabanana. markaan saa u taabano qaybtan waxaa noogu soo baxay waxyaabo fara badan. marka waxaan kasoo doornaa meesha ay ku qoran tahay settingska markay noo soo baxdo sidoo kale waxaan u soconanaa hoos ayaan u soconanaa. waxaan ku dhufanaa meesha ay ku qoran tahay account ownership and control qaybtaas ayaan ku dhufananaa. markaan qaybtan ku dhufano waxaad arkaysaa in ay noo soo baxeen qaybo fara badan. waxaan taabananaa meesha ay ku qoran tahay deactivation and deletion ayaan ku dhufananaa. markaysaa u taabano waxaad arkaysaa inay soo baxeen laba icon, qaybna waa kan midna waa kaas. labadaas ayaa soo baxay. marka inaan delete gareyno Facebook-geena markaan rabno waxaan tigta saaranaa meeshan ay ku qoran tahay delete account. meesha delete account ay ku qoran tahay markaan tigta saarno kadibna waxaan leenahay continue to account deletion. markay qaybtan inoo soo baxdo waxaan taabanaa meesha ay ku qoran tahay continue account deletion. markaysaa u taabano inaan bahalka hawada ka saarno ayaan rabnaa inaan Facebook-geena delete gareyno. marka waxaan oo dhan ayuu noo saaray wuxuu rabaa inuu dhaho waxaan ku ilaalinaa messenger-kaaga iyo waxaas kale. sidoo kale waa ka soconana waxaan taabanaa meesha ay ku qoran tahay delete account. delete account marka ku qoran tahay halkan ayaan waxaan ku qoranaa password-keena. continue ayaan leenahay. continue markaan taabano halkan sare waxaa noogu soo qoraya 30 cisho ayaad haysataa inaad soo ceshan kartid. marka waxaan taabanaa delete account. marka waad aragtaa inaan bahalkeennii ama Facebook-geena delete gareynay oo khadka ka saarnay. waa ku mahadsantahay daawashadaada. waxaan ka codsanayaa haddaad channelka cusubtahay inaad subscribe saarto sidoo kale aad taabato gambaleelka sidoo kale ay noo like gareyso muuqaalkan sababtoo ah like kasta oo aan helnaa waxay noo suurtagelinaysaa inuu views badan helo muuqaalkeenu. taasna waxay ku xidhan tahay adiga inaad noo saarto like. marka sidoo kale waxaan kaa codsan lahaa haddii ay cilad kaaga timi inaad delete gareyso Facebook-gaaga waxaa noogu reebaysaa comment section-ka hoose ee muuqaalkan. waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.